بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتا magacayga waa Cabdullaahi Ayman walaalayaal waxaan soo gudbinaynaa cashirkeena sagaalaad conversation lesson 9 soo dhawaada walaalayaal insha Allah cashirkeena aynu bilaabano conversation waa wada sheekaysi ama wada hadal lesson 9 cashirka sagaalaad lesson 9 cashirka sagaalaad at the cave waxaa weeyaan meel maqaaxid yar oo shaaxa ama kafeega laga cabo ama cunooyinka fudud laga cuno maqaaxi saa weyneyn weeyaan at the cave so aynu hore u socono wuxuu leeyahay look fiiri at the cave maqaaxida fiiri it looks nice waxay u muuqataa mid fiican kan kale ayaa ku jawaaba wuxuu leeyahay it looks waxay u muuqataa nice mid fiican do they miya ayaga sell iibiyaan coffee kafeega coffee waxaa weeyaan kafeega do they sell miyay iibiyaan do they iyaga sell miyay iibiyaan coffee kafeega yes ha and tea iyo shaah kafee keliya ma ahane shaahna way iibiyaan so yes ha and tea iyo shaah is it quiet meel xasiloon miya is it quiet meel xasiloon miya ereyga quiet waa aamusnaan ama deganaansho ama xasilooni so is it miyay tahay quiet meel xasiloon ama meel degan miyay tahay oo buuq iyo qayli waxaas aanan ka jirin okay wuxuu leeyahay qof kaleeto yes ha and very quiet aad ay u xasiloon tahay ama aad ay u degan tahay yes ha very quiet aad ay u degan tahay ama aad ayay u xasiloon tahay qof kale wuxuu leeyahay can we sit ma fadhiisan karnaa outside ay u qoran tahay laakiin outside aan leenahay can we sit ma fadhiisan karnaa outside banaanka ma fadhiisan karnaa qof kale muxuu dhahayna yes ha let's sit aan fadhiisano meeshaan let's aan leenahay let us ayaa laga soo gaabshay so aan leenahay yes ha let's sit aan fadhiisano yacni banaanka aan fadhiisano qofka kala hadlay wuxuu dhahay I like waan ka helay this place meeshaani waan ka helay this place meeshaani me too ayuu leeyahay qof kaleeto anigana sidoo kaleeto waan ka helay me too anigana sidoo kaleeto waan ka helay intaas kusoo gabagabaynaynaa wabilaahi tawfiiq